dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil ayaa galay marxalad cusub kadib maalmo weeraro culus oo isdaba joog ah. Warbixinada falanqeeyaasha amniga caalamiga ah ayaa tilmaamaya in Israa'iil iyo Mareykanku ay si gaar ah u beegsanayaan kaabayaasha militariga Iiraan, gaar ahaan saldhigyada ciidamada ilaalada kacdoonka Islaamiga ah ee Iiraan. Weeraradan ayaa la sheegay inay wiiqeen qaybo ka mid ah nidaamyada difaaca hawada iyo qalabka militariga Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan weli waxay muujinaysaa awood ay ku sii wado jawaab celinta dagaalka, iyadoo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado drone ah, isla markaana ku tiirsan shabakadaha xulufadeeda ee gobolka si ay cadaadis u saarto dhinacyada kale. Mid ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan ee hadda saameynaya dagaalka ayaa ah xaaladda marinka shidaalka ee Strait of Hormuz. Marinkan oo ah marin muhiim u ah ganacsiga saliidda caalamka ayaa la kulmaya carqalad weyn, taasoo sababtay kor u kac ku yimid qiimaha shidaalka iyo walaac dhaqaale oo caalami ah. Falanqeeyaasha militarigu waxay tilmaamayaan 4 qodob oo hadda go'aaminaya jihada dagaalka. Midka koowaad, awoodda gantaalada Iiraan iyo inta ka hartay kaydka hubka ee dalkaasi. 2, xakamaynta hawada oo ay si weyn u hayaan Israa'iil iyo Mareykanka, taasoo u sahlaysa weeraro joogto ah gudaha Iiraan. 3, khatarta ku wajahan marinka Hormuz iyo saamaynta uu ku leeyahay sahayda shidaalka adduunka. 4, suurtagalnimada ballaarinta dagaalka ee gobolka iyada oo la adeegsanayo kooxaha xulafada Iiraan. Marka la eego saadaasha 30 maalmood ee soo socota, falanqeeyaasha waaweyn waxay tilmaamayaan dhowr arrimood oo la filan karo. Waxaa la saadaalinayaa inay sii socdaan duqaymo cusub oo lagu burburinayo gantaalada iyo xarumaha militariga Iiraan. Sidoo kale, waxaa la filayaa in Iiraan ay kordhiso weerarada aan tooska ahayn, sida isticmaalka droneska, weerarada cyberka ah, iyo cadaadis lagu saaro maraakiibta ganacsiga ee gobolka. Dhinaca kale, khubarada siyaasadda caalamiga ah waxay sheegayaan in inkasta oo ay jiraan dadaallad diblomaasiyadeed, haddana fursadda xabajoojin degdeg ah ay tahay mid aad u hooseysa, taasoo ka dhigan in toddobaadyada soo socda ay noqon karaan kuwa go'aamin doona jihada dagaalka. Gunaanadkii, dagaalku hadda waxa uu galay marxalad lagu wiiqayo awoodaha militariga Iiraan, halka Iiraan ay isku dayayso inay sii ilaaliso awoodda jawaab celinteeda iyo saamaynta ay ku leedahay gobolka. Sidaa darteed, 30 maalmood ee soo socda waxaa la filanayaa inay noqdaan kuwa xasaasi ah oo go'aamin kara mustaqbalka colaadahan, laakiin weli lama saadaalin karo.